dhismaha isbitaalka weyn ee deegaanka Ceelgula ee gobolka Mudug oo isagoo ah mid taabagelintiisa ku bilowday isxilqaan iyo isku tashi ay sameeyeen bulshada ka soo jeeda deegaankaasi ee ku nool dalka iyo dibadda kuwa oo la danqaday baahida dhanka adeegyada caafimaadka ee ka jira deegaankaasi iyo deegaanada la jaalka ah oo ay dhacday in cudurro ka dilaacay ay sababeen in hooyooyin iyo carruur Soomaaliyeed ay adeeg caafimaad la'aan u waayaan noloshooda maadaama xarun caafimaad ay ugu sokayso magaalada Gaalkacyo oo qiyaas ahaan 107 kiiloomitir u jirta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug gudoomiyaha deegaanka Ceelgula Ali Baashi Aadan Macalin oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya xilli howlo shaqo aan ku tagay deegaanka ka tirsan degmada Hobyo ayaa faahfaahin ka bixiyay halka uu marayo dhismaha isbitaalka iyo rajada ay ka qabaan inuu guuleysto qorshahooda isxilqaan ku dhiso dalkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لما قدي مدى odayaasha dhalinyarada iyo bahda saxaafadda waa salaamantihiin salaam bacdigeed waxaan saakin meeshan u nimid sideedin muuqata isbitaalka guud oo degmada Ceelgula oo dhismihiisu soo bilowday dabayaaqadii 2017 oo shaqadiisu ay ku dhowdahay gabangabo waxa la dejinayaa alaabtii materiaalihii qaybihii ugu dambeeyay isbitaalkaas waa ka qayb qaateen deegaanka degmada Ceelgula dadka ku nool iyo jaaliyadaha dibadda iyo dalkaba dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ilaahay waa mahad leh waxaan leeyahay cid kastoo ka qayb qaadatay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin Allah ka siiyo waxaan rabaa inaan si dheer u sheego odayaasha iga dambeyn doona iyo guddigii shaqada gacanta ku hayay dhaqaale aruuriska inuu u baahan yahay dhamaystir isbitaalkaani inta dhamaan in la dhamaystiro inuu u baahan yahay cid kasta oo gacan ka geysanaysana aan ugu baaqayno inay gacan ka geystaan waliba aan ka codsanayno inay si dadaal ah wax uga qabtaan Awil Nuur Ali oo kamid ah guddiga wada dhismaha isbitaalka ayaa isna sheegay in ay rajeynayaan in isbitaalka uu dhameystirmi doono ayna ka codsanayaan wasaaradaha caafimaadka federaalka iyo galmudug inay kaalintooda ka qaataan ayna dhiirigeliyaan shacabka u istaaga inay wax qabsadaan bismillaah alxamdulillaah ilaah baa mahad iskale isugu kaaya keenay degmadan Ceelgula oo uu ka socdo isbitaalkii weynaa dhismihiisii aanan u diyaar garownay ilaahay idankii in la dhamaystiro sida aad arkaysaan sawirada ka arki doontaan waxa saaka la dejiyay albaabadii iyo mutuleelkii hor deegaankana waxa yaalay shamiitadii iyo alwaaxii iyo safiitadii runtii dhamaantood waxaan isku hawlnay inaan meeshan saaka la isugu keeno ma ahan in dhaqaalihii la hayo lagu dhamaystirayo laakiin maadaama uu muddo badan soo jiitamahay ayaan waxaan go'aansanay dadkii ehelka ah oo lacag aruurintiina ay dib dhacday in shaqadii la dhamaystiro si dadku intay ay lacagta soo aruurinayaan ay shaqada u socoto waxaan rajaynayaa ilaahay idankii inaan heli doono lacagihii la yaboohay iyo kuwa ka dheeriya waayo shaqadii shaqo ka badan ayaan rabnaa inaan qabanno waxaan codsanayaa marka dadka in aan laga caajisin walaalaha ah ee muxsiniinta ah ee awal ku tabarucay lacagtooda xoogooda iyo taladooda in ay isku hawlaan sidii dhamaystirkaas qaybta uga dhiman ay uga qayb qaadan lahaayeen sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro dhammaan bahda caafimaadka ay u horeeyaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya wasaaradda caafimaadka Galmudug iyo dhakhaatiirta u dhashay deegaankan oo la raba inay ayaguna talo iyo gacanba ka geystaan si gaar ah wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaan leenahay isbitaalkan wuxuu ku yaalaa meel aad iyo aad halbowlowga ah bulsho fara badan oo aan caafimaadka dhibaato ku qaba maadaama aad marka mas'uuliyadda caafimaadka haysaan waxaan idinka codsanaynaa inay il gaar ah ku soo fiirisaan dadka bulshadu way dadaaleen shaqadii loo dir ay isku xil saareenna waa arkaysaan meeshay marayso inay gabagabeeyaanna way isku dayayaan laakiin intii ka dhiman oo maamul uga fadhiyo waxaan rabnaa maamulku inuu gacan ka qaar ka mid odayaasha dhaqanka deegaanka Ceelgula ayaa iyaguna xusay in dhibaatooyin xanuun badan oo la xiriira baahida adeega caafimaad la'aanta ay ka jirta deegaankaasi ay rajeynayaan inay ka baxaan afarta gees boqolkiiba boqol markii loo fiiriyo qorax soo bax boqol baan maxaa tiraahdaa ya maxaa tiraahdaa cilla loo fiiriyo qoraxna boqol baa cilla loo fiiriyo qiblada boqol baa cilla loo fiiriyo qoblada muqaabilkeeda boqol baa cilla
intaas oo boqol oo aan daawo haysan isbitaal ku filan haysan baan maxaa tiraahdaa loogu talagalay himadaas halkaas baa la saaray anaka markii la yidhaahdo degmada waxyaalo badan oo dhib ah oo maxaa tiraahdaa aan ku qabnay qofku haddii jiraduna ay ku cuslaato dhibaato badan baan ku qabnay waxaan uga guulaysanaynaa in ay maxaa tiraahdaa meesheenna annagoo joogna helno islaamkaas kale oo jihooyinka jira oo intaasoo jaha ka jiraana qolo wala meesheeda maxaa tiraahdaa ka soo timaado waxaan leenahay ciddii kale oo dalka u dhalatay sida uu sheegay maxaa tiraahdaa caaqil cawil nuur maxamuud in ay gacan naga geystaan inay nagu kaalmeeyaan inay islaamka dhan u kaalmeeyaan inay dalka maxaa tiraahdaa meeshii xuduntaa hobyo iyo gaalkacyo shantaraalkooda weeye 110 maxaa tiraahdaa gaalkacyaa jirta 150 waxaa jirta macana hobyo inta ka dhaxle waxay u baahan tahay isbitaalkaas bay u baahan tahay oo maxaa tiraahdaa nafta la soo aadi doonaa waxaan leenahay ciddii soo abaabushay iyo dib wax ku bixisay ciddii hadda dabacsan iyo ciddii hadda wax ka doonayna guul baan u rajaynaynaa inuu dhammaan hayana waa rajaynaynaa wixii macna wax ka tari kara waa codsi baan u diraynaa waxaan leenahay isbitaalkaanu wuxuu ku fadhiyo iyo baaxadda uu leeyahay iyo dhulka aan u hurnay oo boqolkiiba boqola waxa weeyaan waa wax loogu talagalay ummadda muslimka inay ka faa'iidaan shaqaalo badan iyo wax kale waa la helayaa kolleyba hay-adtaa kulaysana rag baa dibadda jiro macnaa wax ka qabatana waa la heli doonaa waxaan codsanaynaa oo dadka ugu ducaynaynaa inay wax alla qolo walba waxay ka qayb qaadan karto aakhiriya adduunka oo ka liibaanayaan wassalaamu calaykum salaanka bacdi sida raggii horeba warbixinta u sheegay saakay waxaan dhex joognaa isbitaalkii Calguula oo maraya meel xasaasiya ayuu marayaa deeq bixiyaasha iyo abaabulayaashana waxaan leenahay ma qadi doontaan ilaahay ajar idinka siiyo waxaana la yiri limin ninkii hola baa hela aad iyo aad baana ugu faraxsannahay deeqda iyo waxaad aruurinaysaan iyo dadaalkiina waxaana leenahay waa waajibkii aad lahaydeen oo wadaninimo aad u lahaydeen oo dhaliyo aad u lahaydeen weeye waxa aad gacanta aad ka geysateen Calguulana kaalinteeda inay haddii idankeeda ku aaday waa wax aan haddii alla isla qirannahay waana dadaalaysaa waa dhammaatana uga hari mayno waa wadaynaa waxaan idinka codsanaynaa waxaa la yidhi dadka qof xoolihiisa wax ka go'aani ma jiro caqligiisa unbaa wax ka go'an war caqligiina unbaad wax ku soo aruurseen qaaraanka ku bixiseen soo dhammaystira waxa dhiman ha ka caajisina waxaan leeyahay waad adduunkana waad ku faa'iideysaan magac baad ku helaysaa aakhirana waad ku liibaanaysaa taas waa qodobka kale baahida Calguula waxay kala bartaa gaalkacyo iyo hobyo gabadha uurka leh oo laga soo qaado haddii idankeeda leeyahay maaragtaa wisil ama laga soo qaado xingod ama laga soo qaado bajeela ama haddii albaqaydara laga soo oo uurka leh war maxaad filaysaan culayska iyo dhibaatada ay leedahay waxaa nagu kallifay oo dadka dibadda ku kallifay oo haddii idankeeda leeyahay in arrintaa lagu tillaabso dhibaatada markii la arkay baa la isku kallifay in maaragta arrintaas haddii idankeeda leeyahay maaragta lagu dhaqaaqo haddii baahidu sidaasay u jirtaa waxaan kaloo leeyahay hay-adaha war meel cidlaabaad wax ka bilaabi jirteen laakiin meel wax laga qabtay baan joognaada wax ku darsada war wax ku darsada si aad berri tiraahdaan annagu qaybtaasaan isbitaalka Calguulaad ku darsanna saad u tiraahdaan war wax ku darsadaan ay leenahay dawladda waxaan leenahay waddanka adinka dawladu ah wasaaradda waliba waxaan leenahay adiga haddii wasaaradda caafimaadka adiga unbaa haddii alla mas'uulku idin saaran yahay dhul badanna waxbaad ku bixiseen war waajibka aad leedihiin Calguula ka guta war waajibka aad leedihiin guta dadku waa isku dad dalku waa isku dal
mas-uul baa idin saaran aakhire waxbaa laydinka weydiinaya ee haddaad gashaan war waxaan leenahay alguula waxa xaqa idinku leeyahay wasaaraddu waa inay garataan leenahay dowladduna waa inay amartaa waddankay dowlad u tahay waa inay haddii idinka ila dhaqaalaha iyo wix allaah wixii soo galaa qaybka wasaaradda ku wareejisaa wasaaradduna waa inay ka qayb qaadataa aad iyo aad baan waxaan leenahay arrimahaas uga qayb qaata haddii alla idmahayo arrintuna waa noo hagaagi doontaa ilaahay idankiis waxaa jidhay 85 baa mid wuxuu yidhi isaaqii wuxuu yidhi masaajid wuxuu ka tuugsaday burca ku yaala waar waxa noo dhiiba war waxaan dhowr qola agmadhay markii agmadhu yidhi war talow ma waxay moodeen buu yidhi inaan anigu wax ku siyaasanayo inaan leeyahay akhiradu waxa geysteen war dowladda waxaan leenahay meeshu waa dhammaystirayna waana dhammaan doontaa ilaa idanka laakiin waxa adinka waddanka mustaqbal baad ku leedihiin wasaaradda mustaqbal bay ku leedahay dib in loo doortay rabtaa in haddii dadka taageero laga helaa la rabaa haddaynaan waddanka baahida ka jirta aynan marna soo dhugan waryaad xukumi doontaa waryaad berri taageero ka heri doontaa waxa weeye annaga waxbaa noo gelina laakiin adinku dantiinna waxaan leenahay oo idiin soo gudbinaynaa dowladda iyo wasaaradda waxaan u soo gudbinaynaa war waddanku xaqi idinku leeyahay ha laydinka arko